السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كنا سدواد برنامج كايدو كل wadaagna sheekooyin kubadda cagta kooda la hadlahayo taageerayaasha CR7 iyo Messi waxay ka sameeyeen inay Buffon weerar ku qaadaan sababta wali waxa taagan hadalka uu dhahay ayaa si weyn loo gadgadina Buffon wuxuu dhahay hadii la dhaho skill ama xirfad iyo talent Neymar uu ka talent fiican yahay Messi iyo CR7 wuxuu ku soo aado ka dhawaajay xilli adduunyada labadaas kaliya indhahooda ay ku eegayeen sidoo kale tan wuxuu dhahay ninkii ahaa Buffon Neymar afar jeer inuu banoonida ora qaat markii ugu yartay u qalmo ka dhawaajiyay marka Buffon maruu Koryada dalsar la sheekeysana wuxuu dhahay aniga saddexda generation ama jiil wala soo ciyaar hadii noqoto Zidane hadii noqoto Ronaldo haween hadii noqoto Messi CR7 Iniesta iyo kuwa kale far badan laakiin aniga wuxuu dhahay Buffon ahaan waxaan u arkayo ka dhawaajiyay Neymar wiilka lagu magacaabo inuu u qalmo 5 banoonida ora ku guuleysto alla muxuu laacib yahay dhahay xilligii Paris Saint-Germain aan joognay wuxuu dhahay banooniga soo ciyaaray inaba caadi ma ahan ina kale tan wuxuu dhawaagay Barcelona uu joogay incredible laakiin maxay kugu taalaadka wuxuu dhahay iska aaminsanaa Messi CR7 biladaha ku aruuriyaan arinkan markuu dhahay hal maalin ka soo wareegatay kadibna hadda waxa dhacday taageerayaasha Messi CR7 waxay ka sameeyeen inay weerar ku qaadaan Buffon ay leeyihiin adiga badamiinata iyo waliga maada ku guuleysan Champions League iyo waxa gashid male iyo ninkii waa karbaasheen laakiin Neymar waxa waa Buffon aragtiisu ka hadlay aragtidiisana waxay tahay in Neymar uu leeyahay uu ka laacibsan yahay labadaas ee adduunyada labadaas u jabto ka dhawaajay statistics kaliya fiisha number of goals waxa ay fiiriyaan laakiin xirfad iyo laacibtinimo wuxuu dhahay Neymar waa ka laacibsan yahay Messi iyo CR7 soo dhawaada asxaabta idinkan aragtidiina ka dhiibta Buffon aragtida uu soo jeediyay kullu way keentay inay midoobaan taageerayaasha Ronaldo iyo Messi inta badan aan midoobin waxayna ku midoobeen si ay dabcan kaga jawaab celishaan hadalhaynta Buffon u dhashay markaan waxaan soo qaadanaa kooxda Barcelona qaraabkooda iska wataan Afrika bariyan wax laga soo daldalayaan haddana sawirkan Fabrizio Romano soo bandhiga Barcelona dhameystirta laba heshiis oo degdeg ah Ibrahima Kaka Diarra oo 18 jir ah oo bisha December noqon doono iyo Aruna Traore oo 17 jir ah labada waxay ka soo wateen akademiyada lagu magacaabo Academia Africa Food oo Mali ku taal labada ciyaartoy ka soo wateen waxay ku biirayaan akademiyada Barcelona labadan talentiga tayada wanaagsan maanta u soo duuleen dhankaas iyo Barcelona Fabrizio Romano markuu nala shaqeeya Barcelona hadii ciyaartoydan gacanta ku soo dhigeen oo wakiilada ee shaqeeya Afrika joogan sawirada la soo diray waa kuwana la dhahay dabcan Diarra iyo Traore noo soo dhigay baraha bulshada bal update garay caalamka Barcelona business ka ay sameynayso yaa ogyahay biri kuwa hadii waxay noqon karaan kuwa adduunyada qabsan Barcelona markasta waxay jeceshahay talentigaas in aruursato lama siida ay ku darto kadibna ay wacdara dhigaan hadii u soo gasho waxba ka soo baxaan labada xataa mid kamid biri noqon doonaya og laacib dunida qabsada banaanka isku dhaco markaan aan soo qaadano kooxda Spurs ayaa si rasmi u sheegtay inay abiil ka qaataan marcafaan ganaaxii la dul dhigay Rodrigo Bentancur oo 7 kulan ee ganaaxeen FA-ga dabcan Ingiriiska ciyaaryahankan Uruguay waxa lagu weystay xogaa baashaal iska sameeyay TV ka soo muuqanay bishii June oo wax yar oo u gafaysoon taas waxay keentay in 7 kulan uu ganaax hal nimankan Kooriyaanka mindhayarka waxa ku sameeyay cunsuriyad aan la aqbali karin inkastoo Son uu raali garay Bentancur haddana waxay leeyihiin xiriirka Ingiriiska ninkan in lagu daydo kafta noocaas kala baraha bulshada inuu ka sii daayo ama TV laga daawana wax la aqbali karamaan waa inuu ciqaabtiisa maraa wuxuu muujiyay nacayb uu qabo qowmiyad gaar in dhayartu uu qabo hadda Spurs waxay waxaas wax ka jira mal waxaan aqbali karna male ciyaaraankan uu naga ganaxay inuu ciyaaro kulamada domestic horyaalka iyo soo kale koobka maxalliga ah racfaani qaateen jawaab ay sugayaan in xitaa al aqali laga yaray ganaxa la dul dhigay صاحب waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada kubadda cagta qaybka ee wiilka lagu magacaabo Victor Hugo oo Barcelona Europe ee keenan ka wareertay hadda dhankaas iyo Real Betis ama kula joogo wuxuu dhahay runta hadaan ka hadlo xilligii aan Barcelona imaad waqti aad ku soo aado ka dhawaajay la qabsiga Spain imaanshaha nolosha Barcelona time ma bahan loo ka dhawaajay aan kula qabsado laakiin hadda wuxuu leeyahay wax kasta oo ku faraxsanahay xaaladii adkeed aan soo bar wuxuu waxay in noqoto experience amida 10 ka bartay hadda wuxuu leeyahay waa ku faraxsanahay Real Betis waqti fiican ku qaadana hogaamiye noqday marka wiilkan wuxuu leeyahay xaaladii Barcelona lagu qiimeeyay wiil yar Europe imaada in la qabsi iga bahneed laakiin hadda wuxuu leeyahay step forward tilaaban qaado Real Betis na boosan ka helay si fiican waa u ciyaarayo ka dhawaajiyay waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibayaal sheekooyin kubadda cagta qaybka Lautaro Martinez markuu shabaqa gaaray kulankii Argentina iyo Peru u dhaxeeyay goolkaas uu Messi ka caawiyay saaxiibayaal wuxuu u yahay gool special ah sababta ninkan wuxuu noqday taariikhda uu barbareeyay Diego Armando Maradona oo Argentina ragii ugu goolasho badnaa ayuu barbareeyay 32 gool oo shabaqa gaarsiiyay ninka lagu magacaabo saaxiibayaal Lautaro Martinez oo 27 jir oo Inter Milan u ciyaaro 70 kulan ayuu saftay wuxuu hadda qayb ka noqday 5 ciyaartooy ee taariikhan Argentina ugu goolasho badan waxaana ka gool badan Messi oo 112 gool shabaqa gaarsiiyay kadib waxa ku xigan Gabriel Umar Batistuta
iyo Sergio Aguero iyo Hernan Crespo saadarta wuxuu leeyahay marka Lautaro Martinez darajada aan gaaray aadan ugu farxsan ayuu ka dhawaajiyay dhinaca kale tan Lautaro waxa la hada 10 gool ayuu marayaa xagaagii Copa America bilowd ilaa hadda markii loo xisaabiyo kulamada Israa'iilka la ciyaaray Argentina kan ugu goolasho badan waa 10 goals iyo ka badan oo shabaq gaarsiiyay bandhigiisana inaba caadi ma ahan kubadii volleyga lugta bidix ku dhashay oo Messi uu soo kororsan waa gool u qaasay maadaama uu barbareeyay diiga Armando Maradona dhinaca kale Messi asaga xitaa caawintaas uu sameeyay waxay ka caawisay inuu hadda daawadayaasha qiimaha badan la mid noqday London Donovan oo content state caawin sameeyay qaramada markii la dhaho xulaalka waxa uu caawin badnaa London Donovan gaabowgii Mareykan garbaha uga duuli jiray ayaa uu caawin badnaa wixii qaran sheegto laakiin hadda Messi barbareeyay min content state caawin sameeyeen kulamada xigay ee Argentina uu ciyaar doona Messi haduu gool caawiyane record gaar oo sameyn doona wuxuu noqon doonaa taariikhda ciyaaryahanka ugu caawinta badan ee qaran u ciyaaray ayuu noqon doonaa record asiga u gaar ayuu sameyn doonaa saxbeel markan waxaan soo qaadanaynaa BBC waxa kaga dhex jira page-kooda meel gaar ah ee Chelsea kaga falanqoonayeen waxa la soo qaatay yaa mudan in hadda kadib uu noqdo qof lama taabtaan James iyo Malo Gusto qaramadii waa dhamaadeen ilaa December qaran lama ciyaari doono kooxaha lagu mashquuli doona James Isfid wuu soo laabtay Malo Gusto hore uu caafimaad u qabay labadan ciyaartooy ayaa waxa laga sameeyay isbarbardhig ee BBC ka sameynayso midkii booska xureysan doono waliba hadda waxay leeyahay isbarbardhigan waxaan sameynaa xilli 4 toddobaad ay ka soo wareegtay dhaawacii dheer oo ka soo kabtay James at least marka nin 4 toddobaad banooniga ciyaaray waa nin fit ah oo tartan gali karo ciyaaryahanka lagu magacaabo dabcan James oo 24 jir 250 daqiiqo ayuu ciyaaray xilli ciyaareedkan soo soo laabtay laba ciyaarna full game 90 minutes ciyaaray laakiin Malo Gusto waa kan ugu fitsan Chelsea tani xilli ciyaareedka waxa la 37 kulan xilli ciyaareedka hore ciyaaray Justy waa 22 jir bandhigiis inaba caadi maan xitaa favorite wuxuu noqday macna Enzo Maresco laakiin statistics-ka kooban intuu James soo laabtay ilaa hadda ayaa waxa la sameeyay marka koowaad the case for attack iyo ku fiican BBC da dhahan Premier League markii la fiirsho statistics-ka 90 minute-ka 71% ayuu baaska James dhameystiray Malo Gusto 47.8% ayuu baaska dhameystiray EPL xogta ku saleysan touches-ka taabashada waxa badan James 91 jir kubadda taabtay Malo Gusto 69 jir ayuu taabtay forward pass marka loo kubadaha weerarka hore loo qaaday James badan 27 kubadda hore u qaaday ama u baasay ninka lagu magacaabo Malo Gusto 12 jir take on success guusha iyo waxa la kubadda waxa la adiga markii la qaato on ku guusha ku dhahano ama gooysid ama wax mar taabasho guul ku dhahan oo dabcan waxa ugu badan ninka lagu magacaabo James 50% waa guuleystay tag onkiisa uu sameeyay halka ninka lagu magacaabo Malo Gusto 33% tag on success ay tahay crosska xitaa 5.7 ayuu James kulan kasta cross sameeyaa ninkan 2.6 statistics-kan waxay muujinayaan dhinac kasta dhanka weerarka markii la dhaho wixii kooban uu ciyaar inuu James uu ku wanaagsan yahay daawadayaal muuqato dhinaca kale laakiin markii la fiiriyo ciyaar waxa la soo qaadan karaa in the case of defense dhanka difaaca markii la dhaho xilli ciyaareedkan 90 daqiiqo hadii xogta lagu saleeyo bar 90 game bar 90 minute lagu saleeyo clearance-ga ciyaar kasta kubadda kooxda laga fogeeyo halista badan ee laga fogeeyo banaanka la geeyo Malo Gusto ku fiican 1.8 kubadda fogeeyo Jamesna 1.5 kubadda fogeeyo sidoo kale tan waxa la daawadayaal interception kubadaha la carqaladeeyay ama laga hortagay waxa badan Malo Gusto 1.3 kubad oo carqaladeeyay Jamesna 1.2 tackles-ka jalaafooyinka Malo Gusto ala ciyaar wuxuu sameeyay 2.4 jalaafo sameeya ninkan eber 2.8 jalaafo kulanka sameeya ground duels-ka kubadaha dabcan waa labada isku dhacdo joogas isla boodane waxa ku fiican ninka lagu magacaabo Malo Gusto oo 7.5 ku guuleystay ninkan 4.2 position lost kubadaha la lumiye waxa badan James 15 kubad lumiye ninkan dabcan 11 kubad saasay Chelsea xilli ciyaareedkan laba clean sheet la bixin marka waxa la haday dhanka difaacashada noqoto Malo Gusto fiican dhanka weerarka markay noqotana Reece James fiican reer Blues soo dhawaada marka labadan ciyaartoy statistics-ka laga sameeyay keeba xulan lahayd inuu kooxda si joogta ugu ciyaaro idinkii dhankiina waa iyo commentidiina waxaan markaan soo qaadanaa daawadayaal ciwaanada kubadda cagta qaybka markii aan firino dhanka waxaan u jeedaa Juventus ayaa qodob uga jeeda waxay dalbanayaan wiilka lagu magacaabo Liam Delap oo weerarka ka ciyaara kooxda Ipswich Town hore waxa lahaan jirtay wiilka Man City waa ka warqabnaa mustaqbal fiican uu leeyahay bandhigiis inaba caadi ma ahan Juventus weeraryahan u baahan sababta Vlahovic sidii laga rabo ma ahan fitnesskiisa dhaawac dabcan soo gala mustaqbalkiisa la hubin miligna hore u dhaawacnaa marka Thiago Motta indha Juventus wuxuu Delap hal iga keeno Delapna wiil horumar sameeyay Ipswich Town xagaagii Man City toos kaga iibsaday markaas ay dabcan ku wareejiyeen 15 milyan lacagta pound ah ilaa haddana 12 kulan u ciyaaray 6 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay Liam Delap wuxuu ka mid yahay isla weeraryahanada waliba xitaa typical aad u wanaagsan seeraada haday Juventus helaan in badan uu caawin karaa dhinaca kale Carlito Ancelotti wax ma qariyo wuxuu ka mid yahay macallimiinta qalbiga furan ama warbaahinta aan waxba ka qarsan Janaayo waxa la weydiiyay ciyaartoy ama saxiix malakiina wuxuu ma filanayay Real Madrid dhaqan ahaan loogama baran anigii madaxweyne Perez wuxuu arrimahaas maana ka wada hadlin sidii Janaayo lagu keenay ciyaartoy Real hadda difaac dhexe oo
dabiici waxa uu joogo oo kali Rudiger iyo Jose Vallejo inta kale waa ka dhaawacan yihiin David Alaba wuu soo laabay hadda tababar ayuu wadaa saadartay marka hadalka Ancelotti ay soo xiganayso waxay muujinaysaa macalinkan inuu niga jabsan yahay wuu u baahan yahay daafac dhex in loo keeno laakiin dhaqanka Barca wuxuu yahay in xilli ciyaareedka meel dhexmara ciyaarto aan la keen Eder Militao season uu maqnaan doona Alaba la isku mahalay kar anytime uu dhaawacmi karaa kulli Ancelotti marka quus ayuu taagan saaxiibayaal dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa kooxda Man City oo hoggaan ku qabata loolanka lagu jira Brazilian qadka dhexe ka ciyaar number 6 ee burburiyo kubadda ee Atlanta ka tirsan lagu magacaabay Ederson Juventus iyo Paris Saint-Germain xitaa ciyaaraankan dabagal gaari ku hayaan sida haatan Corriere dello Sport iyo shabakada Min ee daawacayaan ciyaaraankan Atlanta waxay ku doonaysaa 60 milyan oo euro kubadda raacasho kaliya ahna kubadda xitaa hore ayuu u qaadi karaa waana 25 jir waqtigiisa ugu fiican ku jiro xilli ciyaareedka hore kaalin weyn ku leh Atlanta inay ku guuleystaan Europa League saadartay marka hadda Man City oo ka maqan Rodri waxay doonaan ciyaaraankan si ay gacanta ugu soo dhigaan qadka dhaxan ugu xoojiyaan dhinaca kale wararka gudaha Jarmalka imaanay waxay sheegeen FC Bayern Munich hoggaan ku qabata loolanka lagu jiro Florian Wirtz oo ku ilaatan jire Bayern wayba sheegeen labada sano soo socod hadafka ugu weyn ee maamul ahaan leeyihiin waxay tahay Jamal Musiala qandaraas ku inuu sameeyo Florian Wirtzna ay gacanta ku soo dhigaan waa laba talent oo Jarmalka u ciyaaraan aad isku fahansan xulka waxay rabaan Bayern labadan ciyaartoy inay sanado badan u ciyaaraan saadartay hadda shabakada Sport Bill waxay daabacaysaa wiilkan ay kooxda FC Bayern Munich qalqaal ugu jiraan hoggaanka u qabteen Munich xitaa waxaa diyaarka ee 100 milyan oo euro in ku wareejiyaan kooxda Leverkusen si u soo qaataan Florian Wirtz Real Madrid wiilkan waxay u arkaan bedelka Luka Modric inuu noqon karo xagaaga nagu soo foolay Ancelotti waxay rabaan in ku bedelaan Xavi Alonso Florian Wirtzna ay soo qaataan marka Bayern waxa la Jamal Musiala maalin dhaweed ka keenan yes qandaraas ku inuu sameyn doona contractiga Jamal wuxuu ku eegay June 2030 laakiin June 2026 aan waxay rabaan June 2030 inay gaarsiin ka gadaale haddana Florian Wirtz ku guuleysan loolanka lagu jiro sida Sport Bill ee daabacayso dhinaca kale daawadaan waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada kubadda cagta qaybka macallin Maresco wuxuu leeyahay ay jirto arin aan ka shalaynayo xilli ciyaareedkan inta uu socdo waa in Joao Felix aanan siin daqiiqado ku filan oo Premier League ciyaaro Felix hadii qaranka loogu cokaal iska arag waaye tartan Conference League waa xureystay Carabao Cup bandhig fiican uu ka sameeyay inkastoo Chelsea laga reebay saadartay wuxuu leeyahay macalinkan aad iyo aad aan kaga xumaay Felix inaan siin waayo fursad uu Premier League ku soo bilowdo ama daqiiqado ku filan aan ku ciyaarsiin lahayn haddaba ciyaaraankan daawadaal waxa leeyahay markii la fiirshay inta uu Chelsea uu hogaaminayo Maresco inta badan waxa leeyahay كارنت الجلسي كارنت كو إتناد فديان كان سنة EPL كو يتبان كلنا عيران حدقان وحو كميديا كو كاتك كجرو وحو ده مركا عدي آن فيريو ده كول بالمر إي مدويك إي سانجو إي بدرو نيتو إي كل وحو ده إن كونك إيو ninka lagu magacaabo hogaamiye Jackson kulli wuxuu daqiiqada wasiila ka dii ay jirtay ciyaaryahan ka shaleynay oo aan ciyaarsiin wuxuu waa saaxiibkii wuxuu Joao Felix oo dulqaad badan aan ka xumaa markasta wuxuu inuu kaad ku jiro waxaan rajeynayaa ka dhawaaji ciyaaryahankan inaan ka faa'iideysto oo kulamada xigaan ciyaarsiin marka reer Blues Felix ma u qalmaa in Premier League daqiiqada ku filan ciyaarsiin bal idin commentaydin ka dhiibta waxa leedihiin ninkan koob u qorsheysanay ee koobkiisa ay iska ciyaaro waa dhankiina iyo hadalhaynta kubadda cagta qayb ka training-ka sameynayso una baahan daawadayaal in dabcan laga doodo sababtu waxa leeyahay markii la fiiriyo culays ku ciyaaraanka markasta ka inuu ku jiro ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa Barcelona inay u guuraan garoon Camp Nou xilli ciyaareedka oo meel dhaxmar way ku adkaan doontaa sharciyada UEFA aweed Barcelona 18 bilood ugu dambeysay garoonkan waxay galiyeen 1.25 bilyan lacagta pound ah iyo ka badan kaga baxday haddana waxa leeyahay capacity-giisa 80% waa dhameystiran yahay garoonkan qaadkiisa markii hore wuxuu ahaa 99 kun u ahay hadda 104 kun la gaarsiiyay waliba si casri ah modern loo sameeyay Barcelona waxay rajeynaysaa Mars markii la gaaro inay dabcan u guuraan garoonka Camp Nou sidoo kalena ay ku ciyaaraan isagoo qaadkiisa uu yahay ilaa iyo 60 kun 70 kun meelaas u dhaxaysa inta kalena ay sii sugtaan laakiin sharciyada UEFA waxay diidaysaa in xilli ciyaareed oo dabcan dhaxmarayo garoon koox ka guurto garoon kale ay ku ciyaarto ruleska Champions League diiday u yaalo maadaama Champions League ay ciyaaraysa naadiga Barcelona ayna ku bilaawdeen garoonka hadda ay joogaan ee lagu magacaabo Stadio Olimpico uma suuro galayso inay ka guuraan garoonkan oo ay dabcan Camp Nou ku ciyaaraan seasonka oo meel dhaxmaraya saadartay marka tigidhka UEFA automatically waxa ugu diiwaan gashan Barcelona home matchkeeda Stadio Olimpico mana ka guuri karto inay sugtaan marka intuu xilli ciyaareedkan ka dhamaanayo sida sharciyada UEFA u taalo culays marka Barcelona taasi ay ku tahay saaxiibayaal aqyaar guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku egyahay xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe haduu alla idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.